gudoomiyaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado Iimaan Cadow Kaarshe ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay isla markaasina qaadacay xilka qaadis uu ku sameyn lahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Cismaan Nuux Xaaji Macalimu. gudoomiyaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado Iimaan Cadow Kaarshe ayaa sheegay in uusan sharci u haysan Macalimu in uu xilka ka qaado, waxana uu sheegay in uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. kulan maanta ay iskugu yimaadeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Macalimu iyo qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Garbaharey isla markaasina uu goobjoog ahaa. gudoomiyaha degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe ayuu si cad uga soo horjeestay, waxana uu sheegay in uusan aqbali doonin xilka qaadis lagu sameeyo, isagoona sheegay in uu yahay gudoomiyaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. Macalimu ayaa shalay galankii dambe gaaray degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado, waxaana lagu wadaa in uu xilka ka qaado gudoomiyaha degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe, balse waxaa hadda muuqata in gudoomiye Iimaan Cadow Kaarshe uu arrinkaasi ka biyadiidan yahay. taariikhduna ay tahay 1 bishii shanaad 2020 ku dhammaan laamaha amniga og taliyaha asrinta gobolka Gado og taliyaha guutada gobolka Gado jeedo xilka qaadis iyo magacaabis gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado kadib markuu wadatashi dheer la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, kadib markuu arkay baahida loo qabo in la helo maamul la jaan qaadi karo isbeddelka guud ee ka socda gobolka. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado xilkii ka qaaday kuwa cusubna u magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan. kow, Iimaan Cadow Kaarshe waxaa lagu bedelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax inuu noqdo gudoomiyaha degmada Garbaharey. كي هذا البروكاست يسمى الله سبحانه وتعالى عندنا نوصل للطب